abaaraha baahsan ee ka jira guud ahaanba dalka ayaa si baan u saameeyay bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd gaar ahaan deegaanada ku teedsan xuduudka Soomaaliland kuwaasi oo aanu safar dheer ku soo marnay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hawd oo aanu ku soo aragnay xaalada adag oo abaareed oo saameeyay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanadaasi aanu marinay anagoo indhahayga ku soo aragnay baqtiga xoolo badan oo ay sababtay dhimashadooda abaarta baahsan ee dalka ka jirta iyo kuwa naflacaaridaba bulshadii aanu deegaanadaasi kula kulanay ayaa ka deyriyay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi gobolka Hawd iyaga oo xusay in bulsho badan oo ka tirsanayd bulshada ku dhaqan gobolka Hawd inay u hayaameen meel ka baxsan xuduudka Soomaaliland ka sheegaya abaarta xoolaha ayaa iyo dadka halka wada jooga xooluhu waxay cunaan waa raashin waxaan neefaan raashin lahayn la siinin ma dhaqna halkaas aad moodayeen qamadida iyo arabada iyo dadkaasi waxay gurayaan adiyaabaysa sida daraadeed dawladana waxaanu ka codsanaynaa wixii taakula ee raashinaha ay dadka u hayso inay la soo gaadho oo ay soo gaarsiiso oo dadkii iyo dunyadii labadiba waxay noqdeen raashin cun oo halkan raashin hore dawladdu way keentay shidaal aan dadka ku soo guro dawladdu way bixisay laakiin waxa ka daran xoolihii oo doonaya iyaguna sidii dadka inay raashin cunaan markay labadaas isqabsadaan waxaad moodaa in dadku qofkiiba dad u khalkhalaya awal dadka lagu warwari jiray laakiin imika warwarka ugu badan waa dunyada xaaladahan abaareed ee uu ku sugan yahay gobolka Hawd waa mid horta Ilaahay inuu ka soo jabin karo waxaan ummadda reer Soomaaliland iyo intan dadka gobolka Hawd ka soo jeedaan u sheegaya horta inay horta Ilaahay xamdi ay u noqdaan oo ay Ilaahay baryaan Ilaahay raxmadiisa horta lagu baahay baxa talabaad deegaan ballaaran oo xoolo dhaqato ugu badan yahay xoolihiisina way abaar baa ku dhacdo ku habsatay dad iyo dunyana way saameysay Ilaahay baa horta jimciya horta dhibaato weyn wada ka taagan hadal iyo wax aad loo si baabayo ma baahna anu waxaan kamid ahaa dadkan weligood xoolo ka deegaanka yaalay weligii ma rayn ari duruufta jirta ay ku lifteen ari raro 11 geedi baa guud meesha la yiraahdo awaare markii aanu tagnay xoolina ay intii yara dhameysteen haddana halkii kala noqotay waxaan ugu kaliftay inaan soo guurno 15 geedi oo abaara in xooluhu hore ka jilicsan 15 geedi baan u qaatay halkii 10 ka xooliyo kala baraan nimid markaan u nimid alxamdulillah anu in caag bilaabo la yiraahdo deegaankan BCC baan la kulanay alxamdulillah waan ku faa'iido waan ku yar ladnaan halkay taagan tahay imika xilliga taagan tahay xilligii cabashada way dhaaftay intu qofku cababari ama hadlay ladnaan bay ama ariba ka dhintay waxa sahay waxay taagan tahay xilliga aamuska qofku hadduu aamuso oo duruuftiisa cid u sheegan kari waayna waa xilli adag intu qayqalay walaanta waxaan leeyahay dadka deegaanadan u dhashay iyo cidii kale Ilaahay wax ka siinay cidii waxay cidii wax sadaqaysan wax soo caawiso reer miyiga maanta aad u jilicsan xilliga ugu xumaanay ku jira xoolaha dadkiiba halisa waliba biyaha waliba arrinka xagga biyaha ayaa imika aad u sii adag qofkii wax sadaqaysan iyo qofkii dadkooda wuxuu tarayaa soo caawiya maqlay gabadhan salaam waxaan deegaanahay kaabada sida uu sheegay maxamed waa runtii weeyaan dadku abaarta waa deegaan qashiisay saacadaha laakiin imka lagu jira waa midaan cidba waxba sheegan karayno dadkii iyo wixii isla jilceen oo qaanacaad moodaba dadkiinu iska yahay weeyaan marka dadka deeqbixiyaasha iyo dadka wax sadaqaysanaya iyo dadka aakhiriya adduunka wax danaynaya wallaahi ay soo dadaalaan baan oran lahaa taa waxay raacda hiyar baan raacinayaa tusaalooyinka daruur soo bidhaantay iyo cirkiyaan bari ka tixayn biyo dhaamis booyada la raray kuleyl bacadku yoomay sacii boor baraarkii dhashiye baqalo weydoobay bogga awrta wada laalatiyo adhigoo boojoobay bariis qaraxa boodh iyo habaas bacadna u dheeli busaaradaha ku dhacay iyo carruuraha wada basiiroobay deegaanka halkii waxa weeyaan degmada bilgubada gobolka Hawd
أباره سيحولية أي تبي ديبة ونفيين خاصة أبارتها سي أي 16 وقت قلت تنام كرو تبي ديبة أنا آدي سامي دقاليو سامي كوغاي آدي نافيسي geesta kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balugubadle ayaa waxa ay bulshooyinka ku dhaqan guud iyo dibadba ka codsadeen in lala soo gaaro gurmad degdeg ah dadka xoolo dhaqatada ah ee abaaru halakeeyeen isla markaana ay gacantooda ka baxeen xoolihii ay noloshooda ku tiirsanayd iyagoo mas'uuliyiintu xusay inay dadkaasi u baahan yihiin in si degdeg ah loola soo gaaro biyo iyo baadba taagan xildhibaan Cabdiraxmaan xaaladda taagan markaan ka hadalno dalku aad iyo jiilaalkii ma ku haya waxaanay gaadhay xilliyadii aad iyo aad u xumaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle kala baryawo ilaahay marka inta laga tago waxaan uga tabinayaa in xilligii ugu xumaa ee kaliish loo jiray imka la galay way dee ku dhaaftay xilligii ilaahay raxmaadka dalka u soo jiray bay ahayd aba saacatee hawdiya bariga galbeed iyo hooy dalku waa isku wada mid waxaan ka codsanaynaa haddii ay dawladda tahay iyo haddii ay hay'adaha tahay iyo haddii ay deeq-bixiyayaasha tahayba imika xoolo way jilicsan wixii noolaad way jilicsan yihiin haddii halkaa ay sii dhaaftana waxaa laga yaabaa in ay dee gaadho dadka marka waxaanu leenahay ilaahay baa mahad leh oo la hoos fadhiya oo baryadiisa marnaba laga caajisaynin laakiin se dadka waxa la taro haddii aan ka warramo abaaraha waddanka jooga tiyo abaar baan soo noftay oo abaar 2 sanadood aynu marayno ayaa haddana xil roobaadkii gu'aadee imika haddii ilaahay la waayay marka dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo hay'adaha dawliga iyo hay'adaha madax bannaan iyo taliyada dibadda iyo cidda waddankan u dhalatay qurba joogta u dhalatay gobolka Hawd iyo inta hoos timaada xukumo abaaraha wayna gurmad degdega ay ilaahay baa gurmaday inay u fidiyaan ilaa iyo inta hoos timaada iyo degmada Balcabane ilaa Gumar soo maray abaar aad iyo aad u saameysay ayuu saameysay xoolaha imika maanta xoolaha naga wada beelahaayeen meel markuu ku ciwaayeen meel hana loo waabiyo laha markay meel u biye waxta biyihii baraagi waa goonimka waqtigan ku joogno Balcabane iyo Sayla iyo Baargo cunaqabad inta ayaan ku maray socdaal marka biyihii baraagi waa go'een oo hor baraagi loo raasay jiray xoolo meel ma gaariyaan waxaan halkan baaq u marinayaa cid kasta oo danaynaysa shacbiga tabaalaysan ee reer Soomaaliland ee abaaruhu naafeeyeen sanadahan dambe waliba waqtigan maanta aynu joogno maxadadii ugu xumayd la marayo waxaan leeyahay awal hore dee xooluhu daaq bay cuni jireen dadkun baa raashinka loo yaqaan item kastoo ay yihiin imaka xoolihii waxay noqdeen raashin cun dadkii xoolihii isku sibaa loo quudiyaa ilaahay baa wax quudin kara inagu waxma quudin karo maxamed Jiciiro Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale TV qaranka Soomaaliland Balugubadle